Somaliland inkasta oo laga saday magaalada Laascaanood haddana si weyn loogu gilgilayo inay ciidamadeeda ka saarto gobolka Sool oo dhan waxa kale oo cadaadis xoog leh ka haysta dhinaca beesha caalamka afar aag oo muhiima ayay lumisay Hargeysa tan iyo dhamaadkii sanadkii hore markii ay dad careysan oo dhagaxyo tuuraya ka hor yimaadeen si maamulidda magaaladan muhiimka madaxweyne biixina uu amray in xabad looga jawaabo waxaynu eegaynaa afartaas dhinac iyo waxyaabaha ay kala yihiin kow siyaasadda Somaliland oo ka sheeganayd Soomaaliya marka laga hadlayo dimuqraadiyadda iyo kala aragti duwanaanta in ugu yaraan dhinacyadu warbaahinta iska dhaliilayeen hadda taas waa burtay qof kasta oo ka aragti duwanaada hanaanka maamul waa argagixiso fikirka siyaasiga ayaa meesha ka baxay waxaana bedelay intarada ugu badan ee xubnaha dawladda mucaaradka qaarka iyo taageerayaasha madaxweyne biixi ay adeegsadeen luuqad bannaanka soo dhigtay ifafaale muddo laga dhuumanayay oo ah in weli arrintu taagan tahay qabyaalad isirkana su'aal la gelinayo tani waa inaan si aan filasho hore looga qabin waxay u duminaysaa darbigii ugu dambeeyay ee waqooyinimada oo dadka gobolada ka soo jeeda ay markasta xoogga saarayeen inay isku mowqif noqdaan Muuse Faysal Cirro Saleemaan Kaahin iyo Adna ma ahayn dhacdo la qariibsanayo marka loo leexiyo isku sidkanaanta qabaa'ilka Soomaalida balse nidaam soddonkii sano ee la soo dhaafay ku jaamaya in santuuqa bannaanka la dhigo dimuqraadiyaddana la jiro hadda wejigabax ayay ku tahay dhammaan ficilada laga maarmi kara ee lagu tiraabay iyo nooc kasta oo ayaamihii dimuqraadiyadda soo koobay qadiyadda Laascaanood ayaana fayday madaxweyne biixi siyaasad kale oo looga adkaaday waa fagaaraha gobolka iyo kan caalamiga marka laga hadlayo dhiigga gobolka Sool aragtidii ahayd in argagixiso ciidan federaal iyo ciidan Puntland la dagaalamayo ma haysato taageero gobol iyo caalamka si cad ayay Mareykanka iyo Ethiopia u sheegeen inaysan waxba ka jirin warinta Hargeysa ayna tahay in xabadda la joojiyo miiskana la yimaado isla halkan waxa ku fashilmay laba isku day oo Somaliland ay doonaysay inay ku kala jabiso darafyada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn laba Somaliland oo didisay siyaasiyiintii kala joogtay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Hargeysa waxa ay macsalaameysay si aan waliba kabasho badan lahayn oo aan waxba la reeban siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee aragtidooda gooni-goosadka ama Somaliland baamisana kuwaas oo ka hor yimid dagaalka deegaankooda lagu qaaday kasakow in talada lagu weeray deegaankooda aan waxba laga siin una arkeen in si qabyaaladeed loo maamulay haddana markii ay diideen waxa ay la kulmeen in loogu yeero magacyo aysan horey maanka u gashan argagixiso reerahooday raaceen annagaan haynay canshuurteenna ayay ku noolaayeen iyo waa dhashii nidaamkii kacaanku waa erayo ay ku tiraabeen madaxtooyada Somaliland xisbiyada mucaaradka qaarkood iyo siyaasiyiinta gobolka oo wax kula go'aanka ugu dambeeya kuwaas oo muujiyay inaysan darafkaas gadaal waxba u hambaynin gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Salebaan Xagla Toosiye duqi Laascaanood Cabdiraxmaan Qase Cabdirasaaq Ataash iyo saraakiisha ciidamo ka badan 2,000 oo askari kana tirsanaa nidaamka Somaliland maanta xagga Somaliland waxa ay ka yihiin dambiilayaal ama argagixiso marka lagu cabiro shaabadda Hargeysa sida baan looga isticmaalay waa xubnihii ugu miisaanka sarreeyay ee ka soo jeeda Sool Sanaag iyo Cayn kuwaas oo taabacsanaa 10kii sano ee la soo dhaafay aragtida gooni-goosadka Xagla Toosiye iyo Ataash oo xisbiya Somaliland ka jira inay madax ka noqdaan isku duwaan galiyay hadda dhalanteed ayay taasi ka dhigeen waxay sheegeen in dadkooda la xasuuqay kana bixeen Somaliland waa dhabarjab siyaasadeed oo xataa dimuqraadiyaddii ururada laga filayo ku noqday filanwaa mar kale iyo saddex dhardhaar oo isku saami qaybsiya ayaa Hargeysa laga diiwaangelin doonaa Cabdirasaaq Khaliif oo ah qofka saddexaad ee ugu darajo sarreeya maamulkaas ahna qofka koobaad ee ka soo jeeda Sool Sanaag iyo Cayn ee xil sare ka haya Somaliland inuu sheego in xasuuq lagu hayo shacabkii doortay taladana la qaadanayo ismadiisa Hargeysa waa u waabaay aan sahal loo liqi doonin jawaabaha laga baxshayna waxay isu murjiyeen xataa filashada dhow saddex dhaqaalaha sida ay qirayaan madaxda Somaliland dhaqaalaha saameyn xoog leh ayuu ku yeeshay dagaalka Sool bilowgii bishii February waxa la joojiyay dhammaan bixinta lacagihii adeegyada hay'adaha maamulkaas lacagdeena ayay qaadatay xukuumaddu haddana abaabulka guddiga qaran ururinta ayaa la sameeyay dekada Berbera hoos u dhac dhaqaale ayay wajahday sida ay wariyeen qaar ka mid ah madaxda mucaaradka oo ka hadlaya saameynta dagaalkan waxaanse shaki lahayn in socodka dagaalku si baan u saameeyay iyadoo beegsiga rayidkana lagu eedeeyay inay bilowday Somaliland afar jiidaha dagaalka iyo aragtida
Somaliland 6 goor ayay qaaday duulaan culus maalmo ka mid ah bishii hore yaalkuna ahaa inay dib u qabsato magaalada Laascaanood balse waxay kala kulantay guuldarro military iyada oo lumisay dhul masaafo ahaan ka badan 100 kiiloomitir oo u dhaxeeya Laascaanood Boocama ilaa Tukarraq waa filasho hore madaxweyne Biixi iyo nidaamkeedu sawirkeeda xataa aysan u haynin hadda gooja cadde oo ah saldhigga ugu weyn ee Somaliland ciidankeedu ku leeyahay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa dul fadhiya ciidan xoog leh iyadoo ay wali Somaliland xoogga saaraysa sida ay u qabsan lahayd magaaladan haddana istaraatiijiyadda la adeegsanayo ka sokow cududda dadka deegaanku waa sii korortay ugu dambayn afarta aag marka laga hadlayo waxa si cad loo oran karaa madaxweyne Biixi uu ku fashilmay inuu maareeyo xaaladda gobolka Sool Somalilandna way ku guuldareysteen siyaasiyiin ilaa wax garad inay keenaan xal abuuri kara dhamaadka wada noolaansho darisnimo oo ka caagan hadallo taariikhda reebi doona